Guddida Komishanka Doorashooyinka ee Somaliland ayaa waxay maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ay ka kala direen gaadiidkii iyo shaqaalihii ka shaqayn lahaa goobaha iyo deegaanada ay ka bilaabmayso diiwaangelinta kaadhka codbixiyaha taasoo maalinta berri si rasmi ah uga bilaabmaysa waxaana shaqaalaha iyo gaadiidka laga ambabixiyay jaamacadda weyn ee magaalada Burco ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina habka iyo diiwaangelinta ay u bilaabmayso faahfaahin ka bixiyay Maxamuud Daahir Jaamac oo ka mid ah xubnaha guddida komishanka maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha 12aad 2020 waxa halka ka ambabaxaya maan goobihii diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo waxaan u sheegaynaa bulshaweynta ku nool gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo guud ahaanba inay isdiiwaangeliyaan inay soo dhaweeyaan shaqaalaha iyo ciidamada iyo dhammaan u heelanayaasha shaqada diiwaangelinta 2020 waxaan aad u dhiirigelinaynaa in qof kasta ku dadaalo inuu isdiiwaangeliyo uu guto xuquuqdiisii muwaadinimo waxaan ka rajaynaynaa gobolka Togdheer oo ka kooban 3 degmo degmada Burco degmada Oodweyne degmada Buuhoodle iyo degmada Caynabo oo ka tirsan gobolka Sool dhammaantood bulshada ku nool inay arrinka u diyaar garoobaan inay shaqaalaha ka shaqaynaya iyo ciidamadaba si fiican u soo dhaweeyaan in qof kasta waajibkii uu lahaa uu guto in nabadgelyada la ilaaliyo in waa la tartamayaa cid kasta berito waxa la oranayaa meel hebla sidaasay ahayd maanta yaan laga helin maanta yaan soo dhaweynta iyo ka qayb qaadashada qorshaha diiwaangelintu yuu ka lumin 3 qolo baa la diiwaangelinayaa dadkii qaan gaaray dadkii aan xilliga aanay u suurtoobin iyo dadkii duplicate-ka noqday oo mar iyo wixii 2 joor iyo wixii ka badan ku celceliyay intaasaa isdiiwaangelinaya iminka khayr baan idin rajaynaynaa waxa bilaabantay kulleeto hawlgalkii diiwaangelinta waxaanu heegan u nahay inaanu ilaalino ammaanka iyo nabadgelyada ilaa iminkana wax dhibaato ah oo ammaanka wax u yeelaa ku ah ma jiro waxaan fariin u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliiska dhammaantoodba iyo ciidanka qaranka ka hawlgali doona goobaha diiwaangelintu ay ka socoto inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada inay ilaaliyaan ummadooda oo si fiican u soo dhaweeyaan inay ku xisaabtamaan ama ay ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka u yaalla diiwaangelinta amba sida nidaamka ay u sheegeen mas'uuliyiinta hogaaminaysa ee ka socda komishanka qaranka oo aad ugu mahad celinayo sida wanaagsan ay u daadihinayaan amba ay mas'uuliyadda isaga xil saareen iyo hawsha adagay u adkaysanayaan anigoo u mahad celinaya waxaan ciidanka booliiska iyo ciidamada kale ee qaranka ee nala hawlgalay oo aad ugu mahad celinayo waxaan u sheegayaa inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada insha Allah bismillaah waxaan mar labaad mahad celinayaa مسؤولينta ka socota komishanka qaranka waa Sidaan Maxamed Xasan Som News TV Burco.